تأيي هارون معروف. soddon sano ka hor bishan waxay ku beegneed markii ay burburtay dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya oo waddanka ka soo talinaysay muddo dheer. dawladdii talada la wareegtay dabayaaqadii bishii Janaayo 1991 waxaa madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed. ra'iisul wasaarena wuxuu u magacaabay Cumar Carte Qaalib. haddaba mid ka mid ah tallaabooyinka saameynta ugu weyn ku reebay waddanka waxaa ka mid ahaa khudbad uu jeediyay ra'iisul wasaarihii xilligaasi Cumar Carte Qaalib oo ugu baaqay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya in meel kasta ay waddanka ka joogaan ay isku dhiibaan isla markaana ay hubkooda ku wareejiyaan jabhadihii talada waddanka la wareegay. haddaba kala diristii ciidanka ee dawladdii ku-meel gaarka ahayd ayaa lagu tilmaamaa inay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee u horseeday burburka ciidankii waddanka. sarreeye guuto Cabdullaahi Cali Caanood waxa uu xilligaasi ka tirsanaa ciidamadii waddanka waxaana uu ku sugnaa magaalada Kismaayo. Soomaaliya waxay taqaanaa aan ognahay 70yadii dawladda militariga ahayd markay xukunka qabatay waxa uu dhismay ciidan xoog badan oo dawladdii Soomaaliduna ay dhistay dawladda Sofiyeedkuna gacan ka siinaysay oo lagu tilmaamay Afrikada bari ciidanka ugu xoog badan ugu discipliinka badan. dagaal baan galay dadku soo intahay dagaalka 77 military ahaan waa guulaysan laakiin siyaasad ahaan ma aanan guulaysan. Gobdhada siyaasadeed waxay keentay jabkii ciidanka. halkaas waxaa ka lumay qalab tababar dadkii professionalka ahaa oo dagaalka ku dhintay sabilinka oo lumay. intaas markay dhacday wixii ka dambeeyay dagaalkii ma istaagin. laga soo gaara 88 wada muddadaas intii socotay jabhada abuurmay dawladda militariga ka soo horjeeda. ciidankii soo u joogay wuxuu noqday gaar ahaan dhanka koonfurta inuu kala tagtago oo sidoo hore uusan ahaan oo isku xiraan. ciidan kaliya isku xiran wuxuu ahaa ciidanka gobolada dhexe jooga ilaa iyo waqooyi ciidanka jooga. taasna raadkeedii waxa burburiyo u dhameeyay go'aankii uu gaaray ra'iisul wasaarihii Cumar Carte Qaalib oo yiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha isu dhiibeen jabhadaha. taas waxay keentay ciidanka dhexdiisa qaarna inuu ayado qaarna diido ayagu madaafiic isla dhacaan oo leeyantaas leen lahayn inuu meeshu aadi lahaa aad. markaasay meesha ugu dambeysay taasi ahayd oo ku tirtirantay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raadkiisii fiicnaa oo 60kii la soo abuuray 1960. qaab lagu badbaadin karay ma jira. ciidanku waxay yaqaanaan dawladda haday dhacday dawlad baa timid madaxweynaha hadla iyo dawladdu waa isbedeshay generaalada ciidamada la hadla nin walba ciidankaaga sidoo u hay raashinka taakulaynta waa ka keenayna adduunkuna waa nacaawinaya nin walba waajibaadkii qaranka u haysiis u hay intaas kaliya hadii la dhila kulooda israaci lahaayeen mana burbureen mana aysan kala tageen. jabhadana ma qabsadeen jabhadana la yiraahdo wada hadal baan wada galeynaa ilaa wax meesha qabsadayba waa jabhadii dawladda la dirirayay. ciidankuna waa ciidan Soomaaliyeed ciidan nin leeyahay oo samaystay oo asagu dhalay ma. wixii ka dambeeyay kala diristii ciidanka waxa waddanku uu gala qalalaasay dagaal sokeeye iyo burbur waxaana isaga hor yimid jabhada hubaysan oo ku dagaalamayay talada waddanka. saraakiisha Soomaalidu waxay ku faanaan in Soomaaliya ay lahaan jirtay ciidan xoog iyo anshax leh. ciidankaas oo xilligan caqabado badan lagala kulmayo sidii dib loogu dhisi lahaa. gaashaanle sare Xasan Maxamuud Sabriye Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu waddanku xornimadiisa qaatay 1960kii. waxaan weydiiyay sida ay xilligaasi u suurta gashay in la unko lana aasaaso ciidan Soomaaliyeed. sidii loogu dhisaa loo baahan yahay dalka ay wax laga soo qoro bari wax laga soo qoro الجيش وحلقة صغره ماشي اللي لمها بلدوينة بيضاوة كسمايو قالوا قبل أحسن الوقت بين الغرب وبين تاكين لي ده محاي تاسي مهم تاي وحين مهم تاي اسكري قال من قرأ ملك قبيل وملك قيمة البري يكتب بيضاوة قيمة ملك يسوق أسان برنامج خيس كلية اسكري قبيل من نقول نعم هذا ملك سير وقرأ واحد من الرسول أرونا ما نقول نعم معيشي اسكري عمره نرامل وايه طلابة حكتة محايته قبل التلابل حتى عندما استراحية توبر أول مرة اللي جاي مركز إذا لو يقنا بتيجي نعلو أنا كم نعلو وقت طالب بحية نسأل كأنه صبح موسى توبرك تلاقيه كأنه ولا يكسر أيه توبر الصية إلى قوة ألف كي دبلا شو الله توبر وتصور توبر فأقول رجس أبوه قبلنا نتكلم تلقى صغره قبل كيس اللود دينا ما نقول إيش عسكري في عام صواب وأمريكا بيدبر الصغر وينو تلبلوين تبلوين الأخرى وينو تاكسماي markaas mid kiskaanyo ka yimid iyo mid balweyne ka yimid iyo mid baydhabo ka yimid iyo mid dalka yimid intaas Soomaaliya isugu geynaa markaas kala marka nimankan waxay noqdaan nin Soomaaliya marka nin qabiil ku tirsanaayo
أما ما نقول إنه معيشة وهذا هو الضبط اللي هلقى صوري ليه يقول ويحقى صوري ينظر كل ودي وأنا أتكلم ولا كسر ورا بري أو تجا بينه كم سنة ولا كسر ورا أو تجا بالبين وحسب مركز أسكت ذلك هو والله يتبدأ وهل الناس يقولون هلقى توبك وقعتان السنة مركز أول نقطة معرفتي سنة يقول لي سنة هنا وكسر ريان إلا واحد وكسر ريان واحد ويمرك وريزة أما قوت أما يتكلم معرفتي سكتر يتكلم قالوا ذنبيتنا مركز وين على نك هذه شكلك حلينك تدح درجة ولا أسرع لكن سنة وحنا هنا سدح رديدين قوة هاينا ماشي بتلقى من بتلقى ملحون نقضه كم ياشو أفر أما سدح وأكثر نقضانا ملحون نقضني كان كابتن كا وهي ملحتك كان يجي ياشو هي المركة بطلون كملحك الوسط أفروها بيه الوه هبكا سنبا الغوي ما انكرا ولا ملقصة ما انكرا dowladihii isxigxigay ee waddanka soo maray waxay ilaa haatan ku horkufeen inay dhisaan ciidamo qaadi kara mas-uuliyadda amniga ee waddanka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca ciidanka sarreeye guuta cabdulaahi cali caanood waxa uu soo noqday taliyihii ciidanka madaxtooyada sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii al-shabaab looga qabsaday magaalada muqdisho sanadkii 2017 waxaa loo magacaabay abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilligan waxa uu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka hase yeeshee waxa uu wax ka bartaa kulliyadda istiraatiijiyadda ciidanka yaasda ee NATO ee ku taala dalka Talyaaniga waxa uu aaminsan yahay in xilligan ay wanaagsan tahay xaaladda dib u dhiska ciidanka waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda anigu aan ka tirsanahay mar la arko waqtiga ugu fiican yahay hadda jooga laana waxa weeyaan markii dawladda siyaasadda ayada u sarreeyay aqoonta siyaasaddii dalku markay burburtay ciidankii difaaci waa burburay nabadgelyada waa burburtay sharciga waa burburay arrimaha bulshada waa burbureen ciidankii saasoo ku lumay dawladii ku meel gaarka ah gaar ahaan Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Shariif waqtigoodii waa wax la soo aasaasay guul fiican baa laga gaaray inkastoo aysan ciidankaas isku dhaf ahayn hadda ciidamadii qaybihii oo dhan iyo goboladii waa koonfureed waa xor cadawga laga xoreeyay gobolka Jubbada Dhexe maahan iyo degmooyin gobolada qaar ka tirsan hadda waxa guul ah ugu yaraan 2 guuto ilaa 3 guuto oo isku dhaf ah oo Soomaaliya oo dhan ku jirto yaa hadda la aasaasay oo gobolada jooga gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan iyo gobolka Gado iyo gobolka Galguduud saddexdaba waa joogaan 2 ilaa 3 guuto mas'uuliyadda amniga waddanka ma kala wareegi karaan amisom xilligan maya waxaa jira ciidamadii hore ee gobolada oo dawladdu mushaasiiso oo hub haysta oo hadda dagaalami kara jira halna waa ku sheegayaa ilaa iyo cunaqabateynta la qaado oo ciidanku hub ku filan uu helo amisom kala ma wareegi karaan inta marka ku sheego cunaqabateynta haddaan la qaadin isma la armi Syria lagula ma wareegi karo midda kale gobol kasta ciidan baa jooga difaac ku jira amisom iyo ciidamadan waa ku wada jira marka ciidana waa isku dhafo gobolada dhan baa laga soo aruuriyo hal dhibbo way wada galeen saas tababarka uga baxeen qaarna waxa weeyaan ciidankii hore ee gobolka Gado oo kale guuta hore u deganay dadka degan waa meesha degan way baayo boqol waxa degan ilaa 3 guuta deganay ku 3 guuto degan waxa weeyaan waa beeraha deegaankaas way oo cadawga ka kiciyay marka hadda dawladda siyaasadeeda ah in dib loo abuuro ciidanka isku dhafka ah runtii guul fiican baa la gaaray waa 2000 guutadii u horreysay waa mid aan marka ku qabanay ahayd oo 14 October baa la dhijiray guutada 14 October oo lagu magacaabay maalintii al-shabaab dhibaatada faraha weyn uu geystay ummadda Soomaaliyeed oo dadka faraha badan u laayay ka bacdina guuteen waa iska soo dabaxayeen qaarna dalka gudihiisa lagu tababarayay qaarna dalka dibadiisa lagu tababarayay waxaa kamid ah ayuu gaar ah ayagana cutubiyada danab oo gobolada dhan laga keeno commandoska Mareykanka soo tababaro marka la leeyahay ciidanka waa la dhisay oo dhismihiisu uu socdaa maxaa la qiimeynayaa ma isku dhafka la qiimeynayaa ma hubka la qiimeynayaa ma tababarka la qiimeynayaa ma saraakiisha la tababara la qiimeynayaa ma maxaa la qiimeynayaa bal ciidan baa la dhisay haddaad maqasho ciidan waxa dhisa waa aqoon iyo qalab labada maado ka dhisnaa qofku waa la soo saari karaa laakiin waa aqoon military leeyahay qalab uu ku dagaalamana leeyahay saraakiil dhalinyaro ah oo hadda dalka dibadiisa wax ku soo baratay oo akademi kulliyadaha ka soo baxday way jirtaa waa joogaa ciidan dhiboola ka soo baxayna waa yimid laakiin lama helin wali qalabkii lama helin mideeda kale waxaan rabaa inaan hal kalmo ku sheego qaacido kulliyaha jirta waa aragti guud oo istiraatiiji oo xagga militariga
ciidamada markay dhibooyada ka soo baxaan xerooyinka lagu xareeyaa markaas tababarka rasmiga ah u furmaa mid hore waa tababar aasaasi oo bilow oo shibilnimada looga saarayo ciidanimada lagu soo galay innaga booga markaan ka baxana hore dagaal ka galna mid waa dhimanaya mid waa dhaawacmaya cadow dagaal bay ku jira ciidankaas markuu dhismo yaa markaas hawlgal la geliyaa waa markii fursadu ku saamaxdo innaga fursad nooma saamaxin oo degdeg ah waxaan noo qabsaday cadow baan qabsaday aan tusaale markaan ka siiyo Soomaaliya 77 dagaal bay gashay ciidankii disabiliinka lahaa markuu dhamaaday ilaa 200 kun baa laga daba qoray markii laga soo noqday dagaalkana tababar baa furmaha dagaalka laga furay ilaa laga maarmaan bay noqotay marka sidaadaba ciidan waxa la dhisaa xilliga nabadgelyada marka rabto inuu ciidanku ciidan rasmi ah noqdo oo duruufta ku saamaxayso waqtiga dagaalkana ciidamadu ku dhaawacmaan marka innaga mushkilad baa ina qabsatay saddex dhibaato ciidamada Soomaaliya had qabsatay mid marka koobaad una qabateenta weeye marka labaad waa dagaalka joogtada ah oo aan askariga fursad u helaynin sanad ama 2 sano oo tababaro iyo carbisiyo uu sameeyo mudana waa mushkilada guud ee Soomaaliya haysata gaashaanle sare xasan gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markii la aasaasay xornimada kadib waxa uu leeyahay soo saarista saraakiishu waxay halbowlo u tahay dhismaha ciidan adag oo tayo leh aniga xafiiska loo xukmo aan joogi jiray laga xukumo askarta ama xaka saraakiisha aan u dijiray ingiriiska marka moodana aan u dijiray maxaa filaanaya nafad hadii loo hayn inta rabno imtixaan laga qaadi jiray intii marka uu horeyso aniga hadaan 3 rabno 4 sano hadaan sarno hadaan 10 rabno inta ka soo baxday imtixaanka u horeeyaan qaadi jirnay tababarna wuxuu ku qaadi jiray marka dibadaas oo laba qayb ah qayb waa xukunka sidoo ku barnaayo soo askarta kala dambeynteed iyo shii baagan nidaamka lagu leeyahay inuu bartaa qaybta kale waa adiga marka saraakiisha saraaxa waa inay bartaan sida dagaalka loo gudlaa sida anaga doorkuudkaan qolo kale dagaalka sida loo geliyo ciidankan la soo baray markii dambe markii hore ciidanka sida loo xukumi lahaa kala dambayntooda iyo sida loo sameeyay ay taagana ku soo baray kan waxa la soo madaan la magac ruushka joogay 3 sano joogay waxaana la baray sida loo digiyo dagaalka ciidanka xilligan jooga ee iyagoo tababar ku jira dagaal ku socdo dadka ay la dagaalamayaan ma aha ciidan iyo dawlad ee waa niman ku dhufo ka dhaqaaqa ciidankaasi soo dhismi kara wuxuu dhismi karaa wuxuu ku harjaa siyaasadda wadanka markay joogto saraakiisha hadda markay joogto ayay ku dhismi karaa saraakiisha hadii saraakiil maartay tabar fi asooqaat ciidankana kaad hadda ciidanka meesha joogo anaga tiilana sabirtana ma naqaan hadda meesha yihiin oo wax garab xulta inta meesha ku watayo halku u fuulay si uu socdo badaas oo yaabay saacada daba waxaana askari ma diido waxay wataan taawkoodii dibiskay wataaniga wax la yaabay ninka dagaal ugu galacta xilnaanta wax looga tajir magaca oo ku bura ayaa ninka madaxa looga dhigay ugu dagaal gala hadda wuxuu qaadan saanadaani waxaan ku shaqaysanahay oo dhan waa haysan jiray dagaalka marka la geliyaan koox baa loo geli jiray ama garbayaha dadkan garab iska dureero ku socdo ayaan tibigan ku arnaanay oo qoray wata koomo wato koosu buntu ku garku seekeeyay koomo ku wata inuu hore la gol uu soo ku wata marka nidaamkaasi u baahan tahay hase yeeshee ciidanka waxaa hor yaalla caqabado dhowr ah oo ay ka mid tahay in dhismihiisa ay saameeyeen khilaafaad siyaasadeed oo u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada taasi oo hantaaqday qorshihii isku dhafka ciidanka dhibaato kale oo ciidanka dhismihiisa hortaalla ayaa ah qaadka sida uu aaminsan yahay sareeye guuto Cabdullaahi Cali Caanood hal nasiibo kale waan haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana adaa dhib ku noqon doonta maanta dhib ku ah waa chatka maxaa la sameyn karaa qaadka ma la mamnuuci karaa qaalka haddaba waayo dhexe aad baa looga raystay inkastoo hadda la igu yiri chatka dhanka hadda Itoobiya ka yimaadaan la igu yiri chatka nin cunaahu awoodiisa jirku waa daciifaysaa awoodiisa maskaxdu waa daciifaysaa disabiliinkiisu uu hooseynaya tababarka ma qaadan karo waajibaad dagaal oo la siiyo ma fulin karo cadow ma eriyan karo Soomaad garan intaas dadkoo dhan inta chatka cuntaaba waa taqaana iyo inta kaleba waa sun weey ninka askarigaana waxa la rabaa maskax ahaan inuu disabiliinkiisu sareeyo jir ahaan inuu xoog badan yahay cadowgana inuu ka adag yahay kuwa aan la dirayna chatka ma cunaan kii chat cuna waa la dilaa maxaa dhiileed hal sameeyo chatka dawladdu waayihii hore dhulku ku iimaan jiray oo dhib u keen jiray maanta dhib keen maayo haddii aeroboorada laga mamnuuca chatku iimaan karaa ma jiro waa la tijaabiyey marka in la mamnuucaad jeclaan lahayd in la mamnuuco dhaqaale ahaan fiiri
dhaqaalihii iyo bulshadii iyo nabadgelyadii iyo caafimaadkii iyo ka sokay ciidankii baa badbaadayaba inta qaad uu wadanka soo galiyo ciidan ma dhismaya absolutely qaadku wuxuu ku jiraa dhibaatooyinka dhaawaca u keenaya dhismaha ciidanka iyo dhismaha akhlaaqada bulshada labadaba keenayo dhib ku yahay haddaba goorma ayay Soomaaliya yeelan doontaa ciidan ku filan hanashada ka difaacista wadanka ee cadawga gudaha iyo dibadda Samiir Axmed Geyd waxay hore u soo noqotay la taliyaha arrimaha amniga ee ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre waxayna la socotaa qorshaha dib u dhiska ciidanka ee xilligan waxay aaminsan tahay inay hawl culus sugayso xukuumadaha soo socda ee Soomaaliya marka ay noqoto dhismaha ciidanka Soomaalidu waa dad dabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto oo ugu horeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuuridda ciidan la isku halin karo sidoo kale wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ee gelin doonaan ciidanka dalka waxay horseedi kartaa in la helo ciidan tayo leh agabkiisa u dhameystiran yahay hanaan karo xuduudaha dalka cirka iyo badda kana sifayn karo dalka cadowga laakiin aniga ra'yigayga waxaan isleeyahay haddii la isla wado dadaalka 10 sano Soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wada hanta galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage oo aan ka jawaabin telefoonadii aan u diray barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh